السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديش هذا قدرنتي قيمها نجا مدنا وكلنتي وعنو ونكسن يندلنا هاي magacaygu waa sagal guure halkanna waa Somali News TV galabta waxaan u soo diyaar garownay sidaan horeba idinku sheegnay ama aan horeba u baahinay barnaamijkii ahaa kaftanka Somali News inaanu magaalada Hargeysa mikrofoonka la dhex qaadno isla markaasna su'aal ku saabsan isla kaftankii ayaynu ku dhex jirnaaye aanu weydiino bulshada ku nool magaalada Hargeysa daawasho wanaagsan ayaanu idin leenahay anaguna barnaamijka waxaad la socodsiinaysaa anigoo sagal guura adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofka jacaylka ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa bismillaah magacaygu waa Cabdisalaam Faarax jacaylka kulay awaana badan way ka sheekeeyeen halabuurno badan way ka sheekeeyeen waana dareen ma garanaysaa dadkoo dhan Ilaahay uu abuuray xataa nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam ayuu ku dhacay laakiin sida dadku sheegan inta badan wadnaha iyo ma garanaysaa qofku inuu sawaamo ma garanaysaa meel joogas garan waayo waxaas ay ugu badan tahay waxaan dhigi karaa qofka meelaha ugu badan ka soo ataagareeyo lafka waxa kamid ah wadnaha saas qabaan waxa adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofku jacaylka uu ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa qofku markuu jacaylku ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa uu dareemo kelmadda jacaylka uu dareemo qofku markuu jacayl helo amaba uu ku dhaco wasla ayadiina halkee ba xanuuntaa meel ma xanuuntaa uu dareemo jacaylka marka halku ka dareemaa inuu wax jecel yahay adiga jacayl ma kugu dhacay ugu dhacay haye bal looga sheekay bal dadka ku daawanaya uga sheekay jacayl ugu dhacay waan guursaday bas adigoo magacaaga ku bilaabaya markuu qofku jacaylka uu ku dhaco marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa markuu qofku xanuunsan jacayl ku dhaco halkee baa xanuuntaa waxa xanuuntaa qof horta inta miyirka la yiraahdo uu iska garan waaya miyirka haye Soomaal garan kulay wax jiriir cadh yaacay soo kalena waa noqdaa assalaamu calaykum warahmatullaahi marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa waxa ku dhacay bahaliyo u bahaliyooba bahaliyo maxaad ka wadaa marka jacaylku wuxuu kala baxaa dhowr qaybood horta marka qayb qofkii aad jecleed marka aragtay meselanta jecleed oo kale mid maba eegi karto oo ilmeynaysa mid wada aamusaysa mid sidan firkanax baad yeelaysa mid la adiyada aragtay gemi meeysi marka waa bilwad jacaylku marka aragtidana jacaylka ma horeeyo marka labada qof markay sarkaan jacaylku kadis ku wanaagsan labada qof si kadis soo kulmaan ayuu ku wanaagsan aragtida jacaylka ma horeeyo adiga kee kugu dhacay aniga waxa ku dhacay mid kadisa kaabad baa inanku la balamo waliba hadii la yiraahdo qoorta kaabad baa inanku la balamo kaabadii waxaan fariisanayay ilaa sanad iyo badh oo inantii ka raadinayna meesha soo marto markay ii timaadana waan aamusaa waxaan habeen dambe inooga dhig ballanteen marka in inantii la wadi kara jacaylkii waan kari waa marka jacaylku halis halkay ku dambeysay inantii ma arkay dambe way tahriibto jarmalkay qabato anna waxaas ma ka daba dhoofta marka waxaan ku waayay doonay dhaqaale aan ku dhoofo ilaa ma keenay tan jacayl telefoon number hiba marka uu qofku jacaylka uu ku dhaco ama uu helo halkee ayaa xanuunta muxuu dareemaa qofkaas wuxuu dareemaa eedade uu dhaqaajiyaa uuna meel aan muraad u lahayn eedade ayuu ma u dhaqaajiyaa kowdade dabeetana sooba saldhigi maayo ilaa uu jacaylka guntiisa gaadho adiga bal jacaylkaagii hore bal ka waran iyo haddii imika qudheeda aad yara celcelinayso jacayl maanuu jacaylkaygii hore waxa la wixii aan faraa ku hayayba waan ilaabayba ma fahamte baycamister baan ahayo wallaahi baycamisterkii waan ka tegey adigoo magacaa ku bilaabaya marka uu qofku jacayl helo ama uu ku dhaco halkeeba xanuuntaa marka uu qofku jacayl ku dhaco meel xanuun aad taabatoo tiraahdo halkaasaa xanuunaysaa ma jiro waa qof caadiya laakiin hawo uunbaa hayso oo wuxuunbuu doonayaa uun dabeedna inantaa uu caashaqay masalan dumarkaa ma caashaqay haddii la yidhaahdo imanka qoorta aad tiraahdo waxaan doonayaa inaad qoortaada ii soo goyso markaasaa ku raacayaaye wuxuu odhanayaa iga gooya qoorta ii gooya ayuu odhanaya lacag iyo waxa iska daa haddii qoorta la yidhaha qoortaba lagu gooyaa oo inanta ama la siiyaa haaya siiya buu odhanaya jacaylku waa kaa horta wax maaha cayaar iyo dhayaldhayl iyo waxaas imanka jacaylkanay sheegayaan maaha jacaylba waa jacayl waa ayaamo uun waxa weeyaan dhalanteed
weeyaan waan ku jecelahay bas dabadna qaad laakiin kii hore maaha adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa magacaaga Mustafa Cabdullaahi Saciid waxaan aaminsanahay qofka markuu jacayl ku dhaco yacni meel xanuunayso la oran karo ama la taaban karo la oranayo way xanuunaysaa inaanay jirin ya inkastoo de wadnaha oo kale dadku sheegaan qalbi oo kale sheegaan qofka wax uu yiraahdo moogtid laakiin ma dareemi karayno jacaylku waa tan iyo cadhamo dhalaanu adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa horta magacayga bismillaahir rahmaanir rahiim Rido Axmed Naasir laakiinse su'aashaad weydiisay horta qofku jacaylku wax jira laakiinse wax la taaban karo oo inay qofka halkaas xanuunaysa oo dee jirta ma jirto laakiinse dee qofka aqliyan ayuu wax ka yeelay si noqonayaan oo dee wax jira oo dee wuxuu budoonayaa qofkaas wuxuu dooraha ahaada ama wuxuu jeclaaday intaas mooyee dee wax kale oo dee aan ku tilmaami karaa beerati ma jirto laakiinse meel la taaban karo lana waa la taabanaya halkaas xanuunaysa wax jira ma hadda laakiinse jacaylku wax jira bis adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa محمد أرتم مقعد واحد لا محمد حسين شري أنا يقول دعاء ويقول سود وادي ولي له ويهيا مركوقفك كل عش عائلك وحيا وحوشات هيسوى دي اللي وده ميل كلاد قشاء قارق مركاد وضو محمد داد خير بحدا قارق وضد كل قلب هذا الكيسة بريكات قبريسا ضد كسارة بحث خطر قليه مشاكل كاسو بالكاسو نوحيا لكن واحد طبعا صار هاي inaan imika xal ka gaadho hore ugu socdoba oo hay halkee baa ku xanuunta markaa waa qalbiga de hawl galay marshuuc buu galaya waxa ku hortaagan qofkii hawshii wada galaysaan ayaa ku imanaysa adigoo basal karo aan ku jecelahay ayaa hawshii gaarigii ma wada wadadii streetkii ma maraya adoo ila joogo ii sheekeynaya baad imanaysa qalbigii imanaysa beetana waxaad ka baxaysaa shaqadeediisa marka khatar baad imanayso khatar badan baan ku haynaa dadka adigoo magacaaga ku bilaabaya marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga marka hore soo sharmaaka Khadar Maxamed Ali run ahaantii de kalimadan ama jacaylku waa wax jira horta run ahaantii waa waxna ilaahay qalbiyada bani aadamka ku abuuray waa waxna soo jireena laakiin su'aashada weydiisay waxay tahay dareen la dareemo ama yacni qofka meel xanuunta ama uu u ildarnaado horta jacaylku midba meel buu ka helaa midba meel buu ka asiiba oo waxa la yiri jacaylku de qofka meel buu kaga dhaca waxa weeyaan de dadkuna way kala duwan yihiin oo ninba meeshu ka haleelo oo waa kala dooqiye badan yahay marka waxa weeyaan aniga su'aashaasi haddii aan ka jawaabo ama aan dareentay israado waxa weeyaan qofku marka uu wax jeclaanayo waxay ku xiran tahay horta qofka uu jeclaanayo laga yaabaa mar wuxuu kaga dhacaa xagga dharka oo gabadha dharkeedii waxyaalaha inuu dabagala ay noqoto laga yaabaa mar xagga quruxda inay ka raacdo laga yaabaa mar xagga nasabka mar xagga maalka yacni midba meel bay ka asiibto marka waxa weeyaan su'aashaasi de jacaylku run ahaantii dad kalena ku soo dhacay wax badanna way jirtaa marka taas kaga bixi lahaa qofka meel xanuunta ma jirta miya ka xanuunta qof de aanu ismalihi qofka meel baa u xanuunta aan ahayn dareen marka qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta waxa xanuunta waxa u daran intaasuu ka galaa iyo qalbiga had markaad silaa seexo yuunbay koo dhimanaysa saxay markaa nina wuu ku dhadhabaa nina isagoo hogta mooyadoo taataabanayso walaala adiga magacaa ku bilaabaya marka uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta wallaahi magacay waxaa la dhahaa Safiya Cabdi Maxamed de waxaan malanayaa oo dadka waxa ay xanuunta de wadnuhunba dadka inta badan laga qabtaa wadnuhu de jacaylka wadnuhu uu qabtaa adiga mar way marna jacayl ma kugu dhacay anigu waa yarag baan adigoo magacaa ku bilaabaya marka uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta wala horta magacayga ma sheego ma fahamtay laakiin jacaylka hore igu mudhicin laakiin saacadda markii halka soo taagay ugu bilaabay aduna ay ka gala marka uu dadka jacaylka ku dhaco halkee ayaa xanuunta
horta hubbigiisa iyo dareenkiisa qofkuun bay ku xiranta shakhsi ahaantiisa iyo halka xanuunta oo ii sheeg bal qofka markuu jacayl meesha xanuunta ma garana meesha xanuunta marka uu qofka jacaylku ku dhaco halkee ayaa xanuunta qofka bilaadanka horta jacaylku sidiisaba waa dareen qofka bilaadanka ku abuurma ya dareenkaasna maaha wax la taaban karo meel ah laakiin dhammaan xubnaha jirkiisa dhammaan qofka shakhsi ahaantiisa ayaa xanuunsan maaha meel gaar ah xanuunta ma jirto qofka jacaylada ku dhaco marka uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta jacaylku markuu qofka ku dhaco halkee xanuunta halkaas xanuunta qalbiga marka uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta wallaahi qalbiga ba xanuuna ma garanaysaa because qofka jeceshahay waa ina heshid haddaa weydid dismoral baa noqonaysaa you become dismoral may fahantay so jacayl wax fiican maaha it's a bad disease marka la ku jecel yahay ma xumaa laakiin mar haddii laguma jeceli it's a dismoral waxay noqonaysaa disappointed watahay daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii galabta oo ahaa su-aashiisu haddii uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta barnaamijku waa barnaamijkii kaftanka Somali News waxaa idin daadinaysay anigoo sagal guura ah sidoo kale waxaa xagga kamarada inoo joogay Yaxya Cabdirashiid tan iyo inta barnaamijkan barnaamij la mid aan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo